nafbaraha wuxuu ka sameeyay kulay walaga wada dharsiyay waan la wada ogyahay amsanahay labadii kun iyo 8 lacagtii barakacayaasha iyo lacagtii agoomaha intii intuu dees ku darsaday wadda caalamka baalka gala horgiisu iska fadhiistay waxa weeye intii isagoo sameeyay oo ay intaaba aan dadkii masaakiinta wuxuu hoosta ka cunay ayuu shalay markii laba xisaabtamay wuxuu kaga jawaabo garan waayay su'aashii markii la weydiiyay intuu boorka isku laqay buu kaca marka burco waa wadankiisii xinif anu waan soo dhaweynaya xinif aniga waabtigay aad baan soo dhaweynaya burco waxa la xuka sameeyay male waana adke la jan weeyaan okay niyo horta waanu yaabanayn hadaan reer burco nahay waan ilaa xalay ma naseexana waan fikirnaa waxna sinay noo 2008 maxaa la idinku sameeyay baan islahayn kadibna adigu xalay maba seexanba oo waxaan gudubba horta la naga galay marka imika 2008 de iskuul baan dhigano waan iska yaryarayno sibibaxtadaan ku ciyaari jirnay wixii la nagu sameeyay 2008 imika waxa la noo sheego hadii kalena de wixii ka dhacay anaga maaha ni horta 2008 wax dhacay waxaan ogaayuun yararkii magaalada baashan footoriga la yiraahdo magaalada ciyaari jiray ayaa horta footoriga waa la waayay magaalada toloniyo waxaan umaleeyay inuu xinifbariga yararka footoriyada ka warsaday saasa dhici karta maradu kama joogi waay saasoo badan nafbaraha wuxuu ka sameeyay kulay walaga wada dharsiyay waan la wada ogyahay amsanahay labadii kun iyo 8 lacagtii barakacayaasha iyo lacagtii agoomaha intii intuu dees ku darsaday wadda caalamka baalka gala horgiisu iska fadhiistay waxa weeye intii isagoo sameeyay oo ay intaaba aan dadkii masaakiinta wuxuu hoosta ka cunay ayuu shalay markii laba xisaabtamay wuxuu kaga jawaabo garan waayay su'aashii markii la weydiiyay intuu boorka isku laqay buu kaca waana si daran leeyahay lacagtii masaakiinta iyadoo badee iska masaakiinta iska dacad basraynta wuxuu inta la cuno de haddana laga galgasho de wana si daran aamsanahay saxaafadda badee kulay runtii uu ka dhereysantay waxaan leeyahay daanigu de maanta hadday saa ku taanigu de waxaan lahaa istaasilba xinif 2008 Soomaha markuu kulmiye ahaa wuxuu ka sameeyay shir buu aanu shirka goobjoog baan ahaa maxay haytay qola samaroo ama gudubirso timi shirka uu ka saara xildhibaan Abiib shalay toole dooda waan arkay waan daawanayay aaritaan buu waday ugu aarayo heerkooda laga saaray 2008 shirka wuxuu qaldayna male wuxuu dhibayna malaha la jannalay weeyaan ninkaas fariinta u diraya halka kaga haybaan oranayaa dawladda maxay haytay siyaasadahaaga shaqadaada halka aad ka hayso barakacayaasha oo gudoomiye maxay tahay barakacayaasha gudoomiye barakacayaasha uu yahay siyaasadda hadda uu noogu biiray halka ka sii wadnaanaya geed socodkaaga waaran kugu hambalyeynaya waaran kugu garab jooga maxay tahay burcana waa wadankaagii maxay haytay sida doontid ka yeel baa la oran lahaa niyow hadii taariikhdan dib u celino maskaxda dib u celino 2008 afrika sano ka dambeeyay halkan shirweynaha ka qabsoomay kulmiya 2008 Cabdikariin Xinif 2008 halkan waxa uu ka sameeyay sida ay taariikhu warinayaan inkastoo aan goob joog ahayn oo aan xaqiiqsi karo shirweynaha aan goob joog ahayn haddana su'aasha sida uu weydiiyay Maxamed Abiib waxa ka muuqatay in su'aashaas isaga ay si gaar u dhibisay marka aniga waxa ila muuqataa in intii samroon tahay uu yiri halka saara shirka ninka la dhahaa Cabdikariin Xinif beesha Maxamed Abiib ahayd sidaas aniga maqalad igu soo gaadheen waana sababta ilaa imika uu boogihii markaa uu qabay tolkii uu Maxamed muxuu ahaa ninka la dhahaa Abiib ku qabay maanta wuxuu xoqay isla yahay uu ka dhig taariikh madow ninka Cabdikariin Xinif fadhaa isagana waxa uu furan in Xinif hadii uu eedaa soo jeediyo inuu istifaaco difaacada u yeesho wax eeba waxaan ugu maleeyay wax eeba tahay inankii yiri maxaad ka samaysteen oo muu sheegin umadii isna muu sheegin kale wax eeba baan wax kala garan mayna wax eeba tahay ma kulay ugu maleeyay wallahi de aniga horta tabiriga 2008 ma xasano laakiin hadda dhacdooyinka dib loo eego de madaxweyne cod ka qabtay baa la yiri siinayo hawaan maleeyay de inta kale de waa ka diiday inuu shalay inuu sheegana bal isaga inuu dhiibana de xaafadiisa soo weydiiyay